بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم waxaan maanta halkan u soo fadhiistay muddo dheer anigoo aan saxaafadda ka maqan baa waxa aan la yaabay hadal ka soo baxay gabadhan la yiraahdo Sahra Halgan oo ay ugu jawaabaysay ay ku caayaysay ku aflagaadeysay Mahdi Guuleed ay ku caayaysay waxaan aad ula yaabanahay oo shay la yaabo ah horta Mahdi Guuleed aan taariikhdiisa ku sheego Sahraay waa inay yaro xaafid al-Qur'aan oo ahlu bayta oo jamaaca weyn ku dhashay ma garatay oo mutacalin oo karti leh marka waxa weeyaan Sahraay in badan bad qabyaalad qaawan ku hadashay dadkuna maaha garanaysaa stupid maaha qof kastaaba uu idin arkaya marka waxa weeyaan maanta qabyaaladii qaawanid baan kugula hadlaya waxa aad Mahdi caada qaada ugu sheegtay ku tiri waa caada qaate kelmadaasi de waxa weeyaan ma tagtay waxaad ku afdhaqan bal mar uu sheeg in qaran baa tiri qaran waa qaranka la burburinaya qaranka hadii cid burburinaysa adaa burburinaya waxaad Somaliland ku haysana waaba xamare talaabiib iyadoo la tagaa dhaanta hidda dhowr baad la baxday hidda biis weeyaan dhaqanaa Somaliland ka caagan bad habeen walba aad ku samaysaa Somaliland oo bulshada yar iyo ubaxa soo koraya ay intaas oo ay nolosha ka dhacaan because of you marka waxa weeyaan adiga marka aad TV soo fadhiisanayso ee aad qabyaalad qaawan ka hadlayso horta waxa nin gurigiisa quraarad yahayo ha imxuu haayay dadka turtuurin marka hore CV-gaaga la eega marka hore waa la istijaabi CV-gaaga haduu aad og tahay inaanad sumcadaadu fiicnayn dadka lama aflagaadeeyo Mahdi oo ahlu bayt markaad leedahay Mahdi waa caada qaate Somaliland waxaan la yaabanahay hadaba Somaliland dadka degan oo dhan minbar min galbeed way idin arkayaan waxa tiinana xalaal ka dhigay xaaraan ka dhigay ummadda kalena bal way idin noo sheegi doontaan waad noo sheegi doontaan intaas oo dhan buu Cumar Carte ka ahaa ra'iisul wasaare ku xigeen BBC-da markuu ka hadlayo waxa tiraahdaa Fariidkii baa hadlayay bal suga Fariidkii baa hadlayay bal waxa hadda dadka kala dambiilayaal ka dhigay ma maanta markuu ina Carte soo waayay xilkii ayaad Mahdi caada qaata ku sheegtay waxa aad u ayaan darra oo la yaaba Sahraay adigoo aan ma garanaysaa CV-gaagu fiicnayn inaad Mahdi hadal ka sheegto nin baa wuxuu yiri waa noocaas tahay macal hayaha hadaan ahayn laga macaash siiyo maxaa adiga mara kaaga dhigay meel xun iyo ceebta 60 jir baad tahay halkaad ka cibaadeysan leed ee rabbiga uga toobad keeni leed kama kanaad imika qaraacayso guduuda carwo ayaa ka toobad keentay marka aan waxaan ku leeyahay inta aad bilaadan oo karaamaysan aad wax ka sheegayso horta taada sax adigu is xisaab waxa weeyaan taad wadaana qaran ma aha Somaliland qaran kama hadlaysidii oo Somaliland kama hadlaysidii gardarro garabog baad waxayna keenay miskiinka shalay tole xamar tagay iska shaqo tagay ee siyaasad shaqul ku lahayn ee fanka ay dhaqanka Soomaali oo dhan ka dhaxeeya uu yahay muxuu hayay bila xuduuda ee dhaqanka Soomaalidu waa bila xuduud ma garatay marka waxa without borders weeyaan meeshu doonu tagi kara aadimika u soo macmasheen leedihiin wasaaradii waxbu ka shaqeynay qodobada iyo dastuurka waxa u adeegsataan dadka ay u adeegsanaysaan waxaan laakiin taariikhda qoraysa waa maalin walba bilaadanka intii imika wasiirada fadhiyay maalin walba waa hadli jirteen maanta markuu Muuse qabsadayna qof hadlaya ma lihidin dadku way idin arkayaan xishooda oo ixtiraam sameeyaan ku leeyahay dadka ka xishooda oo xishood Sahraay talabaad Abdi Xaashi oo golaha sare fadhiya 7 Somaliland 8 Somaliland jirto maalin walba waa xaraan Somaliland wax jirta ma uu caayay maalintuu Muuse qabsadayna waa ka imika muxuu hayay daw kala dab qaaday Somaliland iyo Soomaaliya marka waxa weeyaan
tiinana waxa xalaal ka dhigay ta ummadana xaaraan ka dhigay la idinka aqbali maayo haddaad gardarro gab og baad siinay aad joojin weyday sahray anigu waxaan ku sheegnaa inaan sharciga gacanta ku qaadano ka idinku macmasheen marka waxaan ku leeyahay oo aan ku sheegaya waa kow ma oo laba ma oo saddex ma intaanu TV ka daawanay eed ragayga karaamaysan wax ka sheegayso magaalada Hargeysa kula joognaa marka waxa weeyaan Mahdi maanta marka uu Mahdi ra'iisul wasaare ku xigeen ayaa loo quuri waayay aad leedahay Mahdi sharaf iyo karaam ku jooga xamar Hargeysa markuu joogana sharaf iyo karaam ku jooga marka waxa weeyaan Mahdi inaad raali gelin ka bixiso ayaa ku haboon hadii kalena dhaqan biis waxa habeen kasto oo aad tunto macsida meeshaada ka dhacaysa rabbi casaawo jilla uu ku arkaya ummaduna way ku arkayaan waxa weeyaan maalin walbana waxa dadka uun ba sida u xajiimeynaysa aad u xajiimeynaysa marka waxaan ku leeyahay haddaad xishoon weydo anagu sharcigan gacanta ku qaadan dawladdan aad leedihiinna hadday waxba ka qaban weydo inaad dadka saa u aflagaadayso aad kursiga dambe lagu fadhiyo anagu wala kursi dambe hamba mid hore lagu fadhiyo anagu reer Hargeysan ma garatay marka waxa weeyaan hadii aad joojin weydo aflagaadada waajibkan u leenay baan gudanayna waxaan kale idin sheegayaa qamar Suudaani maydaan soo bandhigin eedaa ku haysataan maydaan soo bandhigin bayroolka uu kaga jiro wasaaradda warfaafinta oo maydaan oran qamar Suudaani lacagtaas uu qaataa mushaharkaas uu qaataayo numberkiisu bayrool numberkiisu waa ka maydaan oranin Umar Arta Qaalibna TV intu soo fadhiistay mu oran xildhibaannimadii aan xamar ka ahaa waan iska casilay bal haddaba waxa tiisana xalaal ka dhigto Hargeysa ku dhex joogo qamar Suudaanina ku jeebayseen war waxa ay wax ka daran baa wadaane amba dalka cadaalad ka dhaliyo cadaaladu siday tahay justice ku sidii yahay u shaqeeya hadii kalena de qof walba sharcigu gacanta ku qaadanaya marka inaad haddana aflagaada noogu dartaan idinkoo dastuurkan samaysateen sida maxay sheekhi la jiifiyaana banaan la joojiyaana banaan dastuurkii imika Soomaaliland waa la jiifiyaana banaan la joojiyaana banaan idinkoo dastuurkii Soomaaliland sida ka dhigtay oo kolba sida doonaysaan jambiga ka fuuli kartaan ka saaran hadii aad ka saa u gasheen haddana aflagaada aad noogu dartaan de waxa weeyaan xayawaan manihin bilaadan baanu nahay waxaanu nahay dad idin arkaya anigu imika markaan TV soo fadhiisanayeen imika hadlayeen Soomaali meebi Maxamed oo dhan kula hadlayo de markaan soo hadlayo waa inaan ku hadlo wax bilaadan kuna iga dhageysto oo gar ah ilaahayna iga aqbalo laakiin haddaad la soo fadhiisato wax saa loo dhoobay oo kolba dastuurka dhinac kaga imanaysaan Soomaaliland anaga u soo dhimanay inta anaga Soomaaliland nagaga dhimatay Soomaaliland uba tiraadaan laan tuunba gurtaane laantan inta anaga nagaga dhimatay idinka kaga may dhiman haddaba waxaan idin leenahay dadku bilaadanku xishooda waxbuu xeeriyaa waxbuu eegaa hareerihiisu eegaa hortiisu eegaa mustaqbalka dambu eegaa waxani waa wax diiwaanka idinku jira marka waxaan idin leenahay wixii la idinka aqbalay la yimaada hadda TV-ga cayda la soo fadhiisataana uma malaynayo anagu idin caayimeen laakiin cid naga taariikh badani inaan Soomaaliland socon wabillahi tawfiiq